Milatariga Somaliland ee ku sugan jiidaha hore ee gobolka Sool ayaa maanta heegan buuxa la geliyay iyadoo isbedel xooggan lagu sameeyay taliyaasha ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland ee aagga bari, aagga gobolka Togdheer, aagga Caynaba, aagga Guumeys, aagga Tuulada Yeyri iyo aag muhiim ah oo ka tirsan isla magaalada Og. Jamhuuriyadda Somaliland waxay qaadaysaa tallaabooyin ka dhan ah kooxaha huwanta ah ee doonaya in ay qalqalgeliyaan amniga iyo xasilloonida Jamhuuriyadda Somaliland, ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan ciidanka qaranka. Waxaan kula wadaagayaa daawada xogaha macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dhaqdhaqaaq ciidan oo ka jira aagga gobolka Sool. Xilligan waxaa ku soo beegay waxyaabaha aaggaasi ka cusub, wararka sheegaya in Somaliland ay heshay hub iyo gaadiid dagaal oo aad u culus iyo macluumaad kale. Tabinta warbixinteena ka hor, fadlan haddii aad daawada nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkan laygale, commentiga waa aragtidaada, subscribe-na waa xagaaga. Mahadsanid. Mahad Cambaashe, Taliya Cali Barre iyo 3 sargaal oo ka tirsan ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland oo ku sugan aagga bari, aagga gobolka Sool, aagga Sanaag iyo aagga Togdheer ayaa la filayaa in isbedel lagu sameeyo. Mahad Cambaashe ayaa la soo warinayaa in la geyn doono aag muhiim ah oo ku yaala isla gobolka Sool si uu qayb uga noqdo guluf dagaal oo ka dhan ah kooxaha huwanta oo Somaliland xilligan ay qorsheynayso. Xogaha wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in Somaliland ay qorshayaal kala duwan ka leedahay saraakiil muhiim ah oo ka mid ahaa kuwa dagaalka la galay kooxaha huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada. Haddaba xilligan maxaa cusub? Waxa cusub waxay tahay in Somaliland ay qorsheynayso in la qaado weeraro culus oo ka dhan ah kooxaha huwanta oo iyagu laftarkooda abaabulaya inay weeraraan magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag. Sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland goordhow wuxuu u xaqiijiyay in Somaliland ay qaadayso tallaabooyin degdeg ah. Tallaabooyinkaas waxa ugu waaweyn in Somaliland xilligan ay rabto in isbedel lagu sameeyo taliyaasha aagga bari iyo aagga Togdheer si loo wiiqo awoodda kooxaha huwanta ah. Sidaas si lamid ah, ciidamada halka ku sugan ayaa mushaar kordhin loo sameyn doonaa, moraalkooda ayaa la dhisi doonaa, gaadiid dagaal ayaa la siin doonaa, qoryaha darandooriga u dhacaya gacanta laga gelin doonaa. Sidaas si lamid ah, waxaa la siin doonaa bunooyin gaar ah si loo tayeeyo moraalka ciidamada oo ku kala irdhoobay dagaalkii dhacay 25kii bishii 8aad 2023. hadda maxaa ka socda aagga bari? Saldhigga ugu weyn Somaliland ee ku yaala gobolka Sool waa magaalada Og. Xalay abbaara 12kii xilli ama saq dhexe ayaa la sheegay in halkaas ay tageen 2 sargaal oo gacan yara u ah madaxweyne Ciro, waxaana la sheegay in saraakiisha laga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo huwanta iyo in xilligan loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah. Haddaba tallaabooyinkaasi wax walba waa ay noqon karaan. Ila xogayaal waxay ii sheegeen in tallaabooyinkaasi ay noqon karaan kuwa aysan maadin kooxaha huwanta ah. Waxaa la soo warinayaa in xoguhu iyo macluumaadku ay tilmaamayaan in gaadiid dagaal oo aad u fara badan iyo sidoo kale qoryahan darandooriga u dhaca lagu wareejin doono ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland. Hubkaas waxaa la sheegay in 2 dowladoodba ay keeneen, waa dowladda Imaaraadka Carabta ama dowladda Itoobiya. warkeedu waa u cad yahay oo Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka taageertaa dhanka cirka, dhanka dhulka iyo dib u dhiska ciidamada qaranka. Kooxaha huwanta waxaa la sheegay inay ka war heleen in Itoobiya ay dharaar iyo habeenba ciidan xooggan geyso meelo ka mid ah geyiga Somaliland, taas oo iga dhigan tahay in Somaliland dhaqan geliso heshiiskii badda. Macluumaadkan helena waxay sheegayaan hadda daawadayaal in kooxaha huwantu ay xilligan soo wajahday cabsi aad u xooggan. Cabsidaas waxaa la sheegay inay tahay mid aysan marna filayn maadaama ciidanka qaranka Somaliland hadda aad loo hubeeyay oo xilliganba ay diyaar u yihiin inay qaadaan weeraro nooc walba ha noqdee. Macluumaadka wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxay intaa ku darayaan in Mahad Cambaashe gacanta loo gelin doono hub aad u culus si uu u qaado weeraro culus oo ka dhan ah kooxaha huwanta ah. Haddii Mahad Cambaashe gacanta loo geliyo hubkaasi, dad badan waxay aaminsan yihiin inuu yahay mayal adag oo dhulbahantahana si fiican u yaqaana isla markaana libin ka keeni kara meeshii loo diro. haddii mahal cambaasha gacanta loo geliyo qoryaha darandooriga u dhaca iyo hubka noocyadiisa kala duwan
tani waa fariin cad oo xilligan ay wajahayaan kooxaha huwanta ah kuwaas oo xilligan cabsi xoogan ay soo wajahday. wararku waxay intaa ku darayaan in 48 saac ama 24 saac ay soo aadan wax walba isbedeli karaan oo ay ciidanka qaranku qaadi karaan weeraro xoogan oo ku dhufo ka dhaqaaq ah. haddii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay qaadaan weeraro culus, dad badan waxay aaminsan yihiin inay limin ka keeni karaan. madaxweyne Cirro markii xilka loo doortay isla markiiba wuxuu isbedel ku sameeyay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qaranka. wuxuu xilka ka qaaday Nuux Ismaaciil Taani kaas oo lagu eedeynayo inuu ciidanka burbur galiyay. sidaas la mid ah wuxuu isbedel ku sameeyay dhammaan ciidamadii ku sugnaa aagooyinka kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. haddaba sargaalka ugu sarreeya ciidanka qaranka Soomaaliland ee taliyaha militariga ayaa isla la soo warinaya inuu tagi doono magaalooyin ay ka mid tahay Og iyo sidoo kale deegaano kale. wuxuu halkaa kula kulmi doonaa ciidanka qaranka Soomaaliland isagoo kala hadli doona arrimo dhowr ah. waxyaabaha ugu waaweyn ee la filayo inay ka wada hadlaan Nuux Ismaaciil Taani iyo saraakiisha oo la kulmi doono waxa ugu waaweyn in xilligan loo baahan yahay in la qaado weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ah oo Jamhuuriyaddu ay qaado haddii kooxaha huwanta ah ay isku dayaan inay soo weeraraan magaalada Cerigabo. Cabdiraxmaan Cirro oo ah oday nabadoon ah ayaa dhowr jeer ku celceliyay inuu isagu doonayo nabad iyo xasillooni. taas wuxuu intaa ku daray in loo baahan yahay in la iska kaashado wax walba oo ka hor imaanaya nabadgelyada iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaaliland waxay doonaysaa nabad iyo xasillooni. haddii taas la waayana annagu waxaan qaadaynaa tallaabooyin degdeg ah, ayuu yidhi sargaal sare oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliland oo ka agdhow madaxweyne Cirro. Itoobiya ayaa la soo warinayaa dhankeeda inay sidoo kale ay sheegtay in ay hub iyo gaadiid dagaal siinayso Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii kooxaha huwanta ah ay isku dayaan inay soo weeraraan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wax walba ayaa la filan karaa dhowrka saac ay soo aadan. Soomaaliland waxay sheegtay in iyadu ay doonayso nabad, xasillooni, dhulkeeda oo barwaaqo ah. dagaal xilligan aysan diyaar u ahayn, laakiin taa beddelkeeda haddii kooxaha huwanta ah ay isku dayaan inay weeraro soo qaadaan in Jamhuuriyadda Soomaaliland aysan gacmaha laaban doonin, taa beddelkeedana ay qaadi doonto weeraro la mid ah kuwa ay soo qaadaan. madaxweyne Cirro ayaa marka uu ka soo laabto shirka Abu Dhabi ee Imaaraadka Carabta wuxuu la kulmi doonaa guddiga taakulaynta iyo dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliland iyo saraakiisha sarsare isagoo kala hadli doona waxyaabaha hadda u qabsoomay iyo in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin ka dhana cid walba oo ka hortimaada nabadda, xasilloonida iyo kala dambeynta dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliland.